waxaan leenahay farinta qaldana baxday ee sheegaysa in kaarku dhamaanayo ee sheegaysa in muddo gaaban uu furan yahay ee sheegaysa inuu qaali garoobayo intaasiba waa fariimo qaldan oo waxba kama jiraan waxaan codsanaynaa in dadka kaarka u degdegaya shaqooyinka kala duwan ay kaga xiran tahay hadday kuwa ku safraya yihiin iyo hadday kuwa safar u jooga ay wadayaasha gaadiidka yihiin inaan kaalinta lagu ciriiriyin maadaama oo muddo shaqeedka iyo maalmo shaqeedka oo dhan muwaadin kasta ay u furan tahay inuu kaarkii qaato kaarka muwaadinimada iyo kaarka dhalashada ka qofba uu u garanayo ee qofka Somalilandarka ay xaq u leeyahay wuu yaalaa qaadashadiisa isdiiwaangelintiisu way soconaysaa maalin kasta oo maalmo shaqeedka usbuuca ah gobolka Togdheer degmada Burco xafiiska diiwaangelinta iyo hubinta muwaadinka ee dawladda hoose ku dhex yaala waa uu ka dhex soconaya sideen wada ogsoonahay inagoo dareensan muhiimadda amni inagoo dareensan muhiimadda kaarka dhalashada ee muwaadinimadu ay leedahay waxaa socotay kaar qaadashadii oo ka socotay gobolka Togdheer ugu horeyn kaarka muwaadinimadu waa waajib qof kasta oo reer Somaliland waxa waajib inuu kaarkiisa dhalashada ama muwaadinimada uu haysto goob kasta iyo meherad kasta iyo hudheelada la seexdo sidaas la mid ah waxa waajib ku ah inay qofka hudheelka degaya cadeemihiisa cadeynaya inuu muwaadin yahay inay ka helaan isla markaana waxa aynu ognahay in maamul daadajintii kaarka dhalashadu ay ka hirgashay gobolka Togdheer oo muwaadinka reer Somaliland ee gobolka Togdheer iska diiwaangeliyay hore isugu diiwaangeliyay oo kaarku ka lumay iska diiwaangelin doona ee muwaadinimadiisa kaarkeeda halkan ka diiwaan gashan doona kadib markuu iska hubiyo dawladda hoose ee muwaadinimadiisa halka iyo hubinta lagu dhameystiro inuu gobolka xafiiska gobolka laftii ka qaadanayo marka waxa inoo hirgalay maamul daadajintii kaarka oo kaarkii aynu Hargeysa iyo Galbeed u aadi jirnay inaynu lafta helo waxa laga helayaa gobolka Togdheer isbiisha waxa laga qaadanayaa xafiiska barisaabka gobolka labo waxa waajib ku ah oo mar labaad aan adkaynayna in qof kasta muwaadin uu kaarkiisa sidii uu qaadan lahaa uu falowgeeda qabto waa koow kaarka muwaadinka lacagtii uu ahaan jiray ayuu yahay oo waxa lacaga ama wax bilaasha oo kaarkii muwaadinimada qaadashadeedii ay ma jirto waa labo warka labaad ee qaldan ee baxay waxa weeye in muddo gaaban kaarkii la qaadanayo xafiiskii degmada ee hubinta muwaadinka in culays badan fuulay kadib fariimaha qaldan markay baxeen ee la yiri waxa dhacaysa inuu kaarku go'ayo ama muddo gaaban la qaadanayo ama uu qaali garoobayo at the same time wuxuu culayskaasi fuulay xafiiskii gobolka ee lafta laga qaadanayay xafiisyadani dad tira ah ayay ahaayeen maalintii u shaqeeyaan saasa hubinta iyo hubsibaduna ay suuragal ku noqonaysaa